dadka saas midida ugu galay gabadhayda arxan darrada u dilay silca u dilay nafta ku dhibay kulanti waxaan daawadayaasha ku xiran janaalkan Shabeellaha TV ku soo dhawaada mar kale iyo muuqaal cusub muuqaalkan waxaan kaga hadli doonaa dhacdo xanuun badan hooyo gabadheeda si arxan darro ah loo gooracay halkee ayay ka dhacday dhacdadan argagaxa badan yaa sadilay gabadha yar inta aanan ku bilaabin qodobkan faahfaahintiisa hadii ay tahay booqashadii ugu horeysay aad ku timaado janaalkan waxaan si xushmad leh kaaga codsanayaa inaad janaalka subscribe aad saarato furatana gambaleelka si ay ku soo gaaraan barnaamijyada warbixinada iyo wararka degdega ah ee aan halkan ku soo baahiyo wararka ka imaanaya gobolka Galgaduud ee bartamaha dalka ayaa sheegaya in gabar yar oo la muddo 15 cisho ah iyada oo meed ah laga helay deegaanka Cayn ee hoostaga magaalada Godinlaabe ee gobolkaasi gabadhan yar oo da'deeda lagu sheegay 12 sano jir ayaa waxa lagu soo waramayaa in la gowracay kadibna iyada oo gacmaha lugaha ka xiran geed lagu dhaxriday marxuumada ayaa waxa lagu magacaabi jiray Aisha Maxamed Shalay waxa ay la nooleed ayadeed oo degan duleedka Godinlaabe gacmaha iyo lugaha ayaa laga xiray waana la bireeyay rag dhagxaan qodanayay ayay wax u soo ureen markii ay tageen waxay arkeen meedka oo geed lagu dhaxriday ayay tiri mid kamid ah qoyska Aisha ciidamada booliska Soomaaliya ayaa gacanta ku soo dhigay oo xiray haweeney ku eedeysan inay dishay gabadhan 12 sano jirka ahayd oo maalin ka hor meedkeeda oo gooracan laga helay duleedka deegaanka Godinlaabe ee gobolka Galgaduud Fartuun Cadaan Sheekh Ali waa hooyada dhashay gabadha la gowracay maalmo ka hor waxayna shaacisay in gabadheedii ay dishay haweeney iyada la dhalatay gabadha dhimatayna habar yar u ahayd hooyo Fartuun oo wareysi bixisay ayaa sheegtay in gabadha inta aan la helin meedkeeda la weysanaa muddo 15 maalmood ah isla markaana uu jiray muran waayihii dambe u dhaxeeyay iyada iyo habar yarteed oo markii dambe dishay hooyo Fartuun ayaa waxa ay sheegtay in markii falkaasi dhacay ay ku sugneed Muqdisho oo ay degneed balse ay gaari raacday markii lagu soo wargeliyay in la waayay gabadheedii sidaasna ay ku gaartay deegaanka Godinlaabe si ay wax ugu raadiso gabadheeda yar ee maqneed muddo ay baadi goobayeen kadib waxa ay sheegtay in duleedka deegaanka ay ka heleen meedka gabadha oo u muuqday mid mar hore la gowracay hooyo Fartuun ayaa sheegtay in walaasheed ay qiratay inay gowracday gabadha yar kadib markii ay si qasab ah ugu waday guriga sidaasna ay u geysay meel duur ah oo halkaasna ay ku gowracday subxaanallah waatan hooyo oo ka hadlaysa sida ay wax u dhaceen iyo dhacdada sida ay u dhacday anigu horta meesha ma aanan joogin oo xamaran kula joogo ma garatay waa garta gabadhan hooyada ay tiri gabarti si ana xamar joogo gobol meel leeyahay deganahay gabadha waan u diiday adeegsato maaragtay cunug yaro iyo loo yahay aman ay haysato inay maaragtay qofta diiska wayeeloodana ma yar way jeceshahay inay maaragtay ay maaragtay dadka iyadoo wax ka dhashay wax ku leedahay amal cusub waa garta hada cadawgaanina waa hoos joogo hooyaday loona filimay arrimahan iyo waxaan ku dhaqaaqay oo qof waalida loo waa garta hooyaday meel magaalada hadda Godinlaabe leeyahay u muuqata xoogaa u jirta ay deganeed baraaga uga qodnay biyada ugu jira alxamdulillah xoolaheeda u joogo guriga uga dhisan meeshaasay maaragtay hantiga guurtaha u tiira xoolaheeda ay waxay ku dhaqanaysay waxay ay markii war ugu soo gaarsiisay cunug yariiso dhiig qoon uga tagtay guriga hooya ku dhahaysa waa weynaatay maray guursanaysaa ma naqaan iyo waxaas marka cunug yaraan rabaa oo macnaha aan haysto maalintii gabadha hadda waan soo dhiibay 5 bilood ay gabadhaas gurigaas xaadir ku ahayd ay ku nooleed waa garta 5 bilood 3 jeer oo kamid ah ay aniga qaas ahaan isoo wacday tir hooyo aniga habar yar waa dishay hooyo aniga habar yar surkan ka gooyahay tir hooyo aniga ayadii waxaan xaq ku dhacay gabadhaan ku soo dhiibay inaad weheshato oo markii hooyo suuqa idinka aadi magaalada aado maarta laba qof oo guriga ku haraysa aad noqotiin oo kale nimadan ku diiday maxaad maarta walaalay aad gabadha ka sheeganaysaa ay markaas tidnaa waxaan naga ay hooyo nagu dirto hooyo bay nagu diraysaa weliga Allah waxa u dhiga maar amal waa garta gabadha yar la hadlo waxay hooyo iyo habar yar mar dama isku dirin ana dad war adigu u kala sheegtay waxaan u kala sheegay ma jiraan hooyo macaanay aniga ayada say waxay ku darsatay ma u doontii ka daara ka badan ma dhihin jir waa ka badan ma dhihin waa garta
وهدي دي سوى دانا إديتر وأنا أولين سوق بستيساس يقول فإلى دعدي تربطاس هاي هذا بعد شوية لما ذانا أروح أبريء عنانتي أو قبل أو أنا فسامي شيء إنه الجو نحن ولا يحال قول سرسرو واقرته لا ما بيننا مرة دقيقة بس سنين تشتري هذه سنين تدي كلا هاد قلب أحد أي لما أنا يسوي أنا سوق لي سوى قبل الشيء وقرأتي وحيد ترجوري كان كدري هو سوق يسواد مقالة يسواد واقرت جوري كان قبل كدري تري يضيق يطفى يجي الحسن ودي تري وحيد تري وحين جري ماشي على مال على لا إيش كسور أنت وعرفت كلي هي سوى نفس أهل كان جيت أما تكل الدهن جريت أما خمسة دهن جريت بقول فتاي ألف ساعدي هاي marka aan gowrac u diyaashay tiroon bari marka waxa leeyahay midida ma xageed ka qaadatay magaalada ka qaadatay waa awal si soo gatay baa midis guriga kama qaadanana waa jirta hada marka walaalo dhacdadaas ay ugu dhacday gabadhii loo hay ka xirtay indhaha ka xirtay afkay mara ka geliday gacnaha ka xirtay kabadina xarigay ku ciijiday eegada la soo ka bacdina midida marsiida xarigina wuxuu ugu xiran yahay qaybtan hoose oo runtu waa weyn tahay robada gawracina halkaas ku yaal labada dhagood salkoodii ku geys way marka gabadha walaasha ah ee habaryarta ah ee wax dishay imise jir way daadeed wala 20 sano 19 dhaxaysa 8 waa ka baxdo gabar caafimaad qabta ma ahayd maskaxiyan iyo xaaladeeda caafimaad maxaa caafimaad qabtaa saadii soo xasuusatay oo dii soo wacayso oo runtii raayaysan tahay oo inay maaragtay sida caasi aniga qabtay aad uga danqanayso iyo wili aad ka soo xasuusato kale qabtaa caawa gabadhan waxay maqan tahay oo lala yahay 15 cisho hal qof oo arkay hal mar waa jirta maanta ayaa meesha midka waxa ku arkay niman dhagaxlayaal ah oo nimanka dhulmaalka ah ayaa arkay waa noo soo qaylo direen magaaladii gurmadkeedii iyo dadka qaraabada u ahaa inagoo ahaan meeshii nimid gabadhii waxa xaqiiqsanay inay tahay Caaisha Maxamed qofka halkan yaalo midka waa xaqiiqsanay markaas kadib waxaan loo yimid ciidamada booliiska degmada Gorinlabe arrintii waxay ka goobeen kaamarooyin iyo cadeymo iyo wixii ay arkeen oo la kulmeen oo dhan way hayaan booliisku aad u dadaaleen waxay kaloo sameeyeen oo maaragtay isla faamilka oo lagu tuhunsanaa waa soo qabteen saldhigii hadda ku xiran tahay taas qabteen anaguna markaa kadib waxaanu galnay inaanu gabadhii aasno asturno xabaasheediin hadda taagannahay halkaas maaragtay hadda aniga iyo dadkii kaloo gurmadka ahaaba sidaasay markaa arrintu u dhacday ma ahan dhacdo ugub ah waxaa muddooyinkii la soo dhaafay meelo badan oo ka mid ah dalka ka dhacayay falal isugu jira dil iyo kufsi lagula kacayo gabdhaha yaryar waad ku maasantahay daawashada aad daawatay muuqaalkan daawade haddii ay tahay booqashadaada ugu horeysay ee aad soo booqato janalkan waxaan si xushmad leh kaaga codsanayaa inaad janalka subscribe aad saarato furatana gambaleelka si ay ku soo gaaraan barnaamijyada warbixinada iyo wararka degdega ah ee aan halkan ku soo baahiyo mahadsanid